السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال كلنتي وعنا وناكسن إذا لهانتين به مال كستا يسكستوا أنو لا سعوتان با waxaan idin leenahay halkani waa telefishinka caalamiga Soomaalida Itoobiya iyo TV oo alaab hadahan oo kale taad uga barataan inaad si toos uga dheehataan barnaamijkan dhig joojinta xirfadaha daawad yal barnaamijkan dhig joojinta xirfadaha ayaa waxa idin la socodsiin doona anigu waa Cabdirasaaq Ibraahim Idaaja halka uu dhinaca kaamiradan uu iga caawinayo saaxiibkay Ibraahim Cabdi Muuse daawad yal toddobaadkan barnaamijkeenani dhig joojinta xirfadaha ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa waa kulliyadda xirfadaha iyo farsamada gacanta ee Jigjiga Polytechnico waqti xadarkan aanu markaas ku sugannahay isla markaasina aanu doonayno inaanu ku soo qaadano barnaamijkanaga toddobaadkan iyadoo markaasina aanu u kurgali doono sida ay ardayda wax ka barata kulliyadani ay wax u bartaan iyo waliba qalabka markaas wax lagu baro iyo sida ay ugu socoto duruusta sanadkan 2009 tirsi taariikhadka dalkan Itoobiya oo waqti xadarkan isagu gabagaba ku dhow daawadayaal waxaan waqti xadarkan ku sugannahay waa kulliyadda xirfadaha iyo farsamada gacanta ee Jigjiga Polytechnico gaar ahaan waxaanu kaga sugannahay waa waaxda furniture-ka markaas ardayda qaybaheeda kala duwan ee barata waaxda furniture-ka ay ku bartaan ama markaas ay practical-ka ku sameeyaan daawadayaal sidaad u wada jeedaan waqti xadarkan waxaanu soo gudagalay waa hoolkii markaas ay ku baranayeen ardaydu waaxda furniture-ka isla markaasna aanu doonayno inaanu eegno qaabka ay markaas u baranayaan dhinaca furniture-ka iyo waliba macallimiinta waxbaraysa markaas tayadooda heerka ay markaas gaarsiisan tahay magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Cabdi waxaan dhigtaa Jigjiga Polytechnic College xirfadda gacanta ama faarada loo yaqaano waxaana isleeyahay faa'iido badan ay ku leeyahay waayo waxaan u haystaa fursado aan kaga shaqeyn karo on dadkayga aan wax ku soo saaray product fiican ama abaata qabaha sariiraha ha noqoto kuraasta ama ha noqoto khanadaha armaajooyinka waxaana isleeyahay fursad fiican baad haystaa on kale dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya aan ugu mahadnaqayo maadaama uu siiyay fursad aan ku helo aqoon bilaasha tacliin bilaasha waxaan halkan ku bartaa anigu aan hay arday dhigata sanadka labaad ee Jigjiga Polytechnic College haddana qalin jibin doonta waxaana bartay fursad aan u helay inaan ka barto jaamacadayda ku taal dawladda Soomaaliya Itoobiya waxaana dhigtaa faarada waana farsamada gacanta waxaana hadda ku guda jira anigoo san product waxaan soo saaraya loo yaqaano meltan joint waxay tahayna isku xidhka ma taqaan laba loox ayaan isku xidhayaa si aan u soo saaro product aan u soo saaro wax macquul gala waayo fursad waxaan u helay inaan soo saaro laba loox oo islahayn ayaan waxaan ka saarayaa si aad macquul gal noqoto oo wax soo saaray product aan u yeelanayo magacayga Maxamed Ibraahim Xasan khibradaan bartaan tahay furniture sanadkan ku jirnay secondary sanadka hore ka soo gudbina fresh khibradaan bartaan wallahi aad bay u fiican tahay waxaan bartaa faa'iido fara badan laakiin maanta shalay saan hayo maanta isku mid mihi farxadeen wallahi aad bay farxad badan tahay khibradaan bartayna wato aad u sareysa khibradaan bartay waxaan ka helay faa'iido aad fiican shalay saan ahaan maanta mihi way shal waxaana maanta waxba isku xiriirin karin shalada waxa qabal igu ma qaban karin way mitir iyo waxa ma kala saarin maanta wallahi khibrad aad badan wax kastana maanta waan qaban karaa soo dhan karaa ujeedadaan wax baran waxa weeye sidaan mustaqbalkayga aan meel uga gaari lahaa in isma u maareyn lahaa naf ahaantayda sidoo kalena waxaan isleeyahay waxaan u soo saar karaa shacabkayga fursado ayaan ka heli karayaa aan ugu shaqeeyo on product u sameeyo sabab ahaato eega waqtiyada guryaha waxa la geliya safito oo kale hadda waxaan leeyahay khibrad aan kaga shaqeysan karayo waxaana dawladdeedina waxa laga yaabaa in waxaan ka helay dawladdeeda China si aan kaga qaato kontraad si aan u geliyo dawlad jaamacadaha ay dawladdeeda hirgelinayso ujeedada waxaan baranayo koow naftayda in shacabkeygana inaan waxaan ka garan waxaan qaban karnaa qabto dhalinyarada waxaan soo jeedinayaa qof kasta wax lagu daydaa qofka hariyo waa inay igu daydaan khibradda dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya iyo wax kasta la garab qabatay way waxay siisay faa'iido bilaasha wax bilaasha waxay siisay looxiyo bilaasha way wax kasta bilaasha way waxyaalo far badan oo dheeriya oo iyana siisay
maanta waxay naga hartamay kornoon si soconaa hiigsiga aan leeyahay inaan shacabkayga caawiyo rajo fiican aan gaaro guul fiican aan gaaro korna u socdo أنا أخرس كأذا يعني قفعنا أرده قفعنا كم هاي تجيك بلتين ما كلا دور في اللي جاي على دورة في الدهان تيدا فإذا أخرس ولا فائدة بدل كاسات كيلس إن نظام ديراد أو تساعد حصل صار له هدي هذا وحبا آخرين وحبا مسمين كريس وهاي مركب هذا آخرين كريس وحي وحال قصينا قرالة كبعد يقول لي وحن آخر أنت أصلا متر بلجابه إيه الله حن ويسكوين هاي وحن رضايا أنت أصلا متر أي معلق النوت المعمين عن صوص عنه متر كأيان قوسينية مثلا متر كي قوي وحن صوص عريا الله إن نظام صن الله إن نظام صن هذا أنا سمينا ما تقنا يي هب أما هذا جوينتر سمينا جوينتر كر سمينا هذا سكوت فنيا سكون سكوت فنيا هذا حتى الله حتى أنا قرال أنا جرين إندي الله إسكما سمين كر صح أو متر كيسو صح يهاي خرج والله فايدة بدن وحكست توكو كلا ساريا وي ما أنت تداد حبا آخرين كرين حنا ما كلا ساري كرتين وي جاهل باتاي جاهل نوح ما قرتوين وما أنت وحكست توحن كل قرنا يا متر كما دل يديبه ما أنت اللي يقول الله حن لا حاول مسمتر وإذا كلا ساري لا تن المتر صد المتر وعدي بالله ما أنت سنتيمتر مليمتر أنت كمان كلا ساري كرا وي أقنت هذا حيقول ديري قل دول ديان كسومان متوبيا الحمد لله إله نقوم محنقيا الحمد لله رب العالمين معلمينتيdu waxay baraan si fiican bay baraan waxayna siiyaan waqti chance aan ugu fiican oo aad u fiican oo igu filan ha ahaatee sanadkan lagu jiro aad ayaan uga faa'iideysanay waayo waxaan helay meelo badan oo ku sameeyna practical waxaan dawladda ka helay looxo waayada hore aan heli jirin ardayda hore aan heli jirin fursadaas oo aan practical baan ardayda hore sameyn jirin hadda anagu practical waxaan sameeynaa eega sanad ayaan practical ku jirnaa oo aan wax theory aan qaadin ama qoraal ah waxayga ma hagaran macalimiintaydu waxay la qaban kareen way la qabteen khibradna way bareen maanta xog waa nismid maanta wax kasta daleeyo joontiyadii waxyaalo badan wax kasta waan iskelin karaa waxyaalo far badan way sameeyeen maanta wax khibrad waxay ka dhimi jirto sanadkana waxaan diyaar galinay inaan qaljibino wax kastana sarta waan sameyn karnaa BV waan sameyn karnaa cover waan sameyn karnaa waxyaalo far badan khibrad badan waan qaadanay telefoonada waan gelin karaa macaal waxyaalo naga dhiman maanta ma jirto dhalinyarada kale ee maanta wadankan joogan wadankan aan ka faa'iideysano meel walba shaqo adag dad qabato shaqayaad keenaysa laakiin hadaada meesha aad shaqada Mareykanka ama waxa loo yaro Yurub ayaa loo ordaya Yurubna ardaygu wuxuu ka helayaa waa shaqo adag markuu sameeyo buu lacag helayaa kaba soo qaad ardayda dadka eega Yurub taga dadka qaarkood ay ayaa lagu xidhanay ay baa laga dhigay si looga dhigana kalkaas aygaas ay maanta ilaalinaya ama jaakada lagu soo yuniga jacdadin baa lagu dhahayaa wadankaagina waxaad ka helaysaa lacag faa'iido fara badan eega halka sariirin anagu soo saarno waxaan ka helaynaa ugu yaraan 20 kun ay ku sameynaa 20 kun ma jiro dimshaar la qaato ruuxaan oo qaato waa hal sariir soo saarno barnaamijkeena kamid ah hadaan qaadano kontraad qaadano aan dawladda ka qaadano kaba faa'iido badan dhalinyarada waxaan ku cad gelinayaa way maanta inay eegtaan waxaan oranayaa dhalinyarada way maanta khibradda kaliya wax kasta meel ku marmari karto gacantaadana me farsamada meel kasta maanta waad ku mari kartaa meel kasta waad la tagi kartaa Yurub haato Afrika haato meel kasta caalamka ka shaqeysan kartaa waxa hooygan ka hadhay waa gacantaada kaliya bas meel kasta maanta waad ka shaqeysan kartaa wallahi alxamdulillah rabbil alamin
daawadayaal wali waxaanu ku guda jirnaa waa barnaamijkeena dhig joojinta xirfadaha waqti xadarkan waxaanu ku sugannahay waa waaxda markaasi samaysa sariiraha kuraasta iyo waliba wixii la halmaada oo waqti xadarkan aad u jeedaanba arday kamid ah markaasi waaxdaasi oo waqti xadarkan ku guda jira markaasi waxbarashadiisii isla markaasina sameynaya practical soo markaasi kor ugu qaado tayadiisa waxbarasho waqti xadarkan waxaanu jecelnahay markaasi inaanu wareysi ka qaadno markaasi wiilkani sameynaya markaasi ama ku guda jira waxbarashadiisa sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay bal tacliintani markaas aad baranayso ayaan doonin lahayn adoo xogaa yar oo sharaxada aad markaas naga siiso waa sax walaal qaybtan aan baranayo waa qaybtii biraha ee kala duwaneed qaybta sariiraha iyo kuraasta wixii la mid ah ee welding shorty waxaan nahay mataqaanaa kooxihii tababarka yar ee gaaban 45 cisho dawladda ay u sameysay marka waad aragtay sidaad aragtay waxaan sameynayaa mataqaanaa practicalkaygii ayaan ku guda jiraa mataqaanaa halkana waa halkii biraha ee qaybtii sariiraha iyo mataqaanaa maxaan ku kuraasta waan gartay bal xirfadan aad markaas baratay maxaad isleedahay faa'iido inta leeg baad ka heli karaysaa wallahi mataqaanaa waxaan leeyahay faa'iido aad u weyn baad ayaad ka helaysaa maadaama kilalkeena horay dad maxaanihi Soomaalida ah oo horay isu bartay in jirin oo nahay dadkii koobaad ama labaad oo eega farsamadan baranaya nahay mataqaanaa waxaan leeyahay faa'iido aad u weyn baad ka gaadhaysaa mas'alaha okay ujeedada aad markaas u baranayso xirfadani maxay tahay ujeedada aan u baranayo waxay tahay inaan mataqaanaa dalkayga iyo dadkayga baan wax ugu qabto mataqaanaa aan farsamo heer fiican aan ka gaadho noloshayda ayaan u baranayaa walido aad baad u mahadsan tahay shakhsi walba waxa uu leeyahay yool iyo heegsi uu markaas leeyahay oo doonayo inuu noloshiisa ku horumariyo bal yoolka iyo heegsiga aad markaas adigu leedahay ee doonayso inaad mustaqbalka gaadho muxuu yahay yoolka iyo heegsiga aan leeyahay wuxuu yahay mataqaanaa sidii aan xirfadan uga niib keeni lahaa farsamada bilaashka dadkan ay nabartay dawladdu sidii aan wax ugu qabsan lahayn mataqaanaa aan ugana soo saari lahayn rajo fiican ayaan rajadii guushaan kale waata bal macallimiintaadu sidee bay wax ku baraan macallimiintana aad bay u mahadsan yihiin boqolkiiba boqol si aad u fiican ayay noo baraan wax waa si wanaagsan ayay mataqaanaa horayna looma hirjeen anaga ma nasiib u yeelanay baan leeyahay macallimiin Soomaali oo sida afkanagi hooyo wax nagu baraysa oo mataqaanaa xabadii aad garan weyday aad weydiinayso macallin halka ay sheego afkaaga hooyo kugu barayso mataqaanaa af kalena aan kugu baraynin waxaan leenahay wallahi waa mataqaanaa nasiib aad u wanaagsan baan leenahay waan gartay ma jiraan waqtiyo dheeriya oo macallimiintu inuu horaan oo ahayn waqtiyada xiisada oo markaas inagu baraan oo faa'iidooyin kala duwan oo dheeraad ay markaas macallimiintu inagu siiyaan way jiraan eegaba saad aragto mataqaanaa anigu eega faa'iido kororsi ardayda maarta eega wax iska yar baxday rifti iska yar baxday anigu si aan u si faa'iido aan u si kororsada ayaan eega iminkan aan waqti xadarkan halkan aan ugu suganahay mataqaanaa way jirtaa waqtiyo badan oo dheeri lagu siinayo waan gartay muulidow qof walba oo markaas wax bartay waxa weeyaan waxa ka dambaysa waa dhinac waa qof macnaha markaas ku dadaala dhinaca wax akhriska oo qof aan waxba akhriyin ba markaas wixii uu baranayay waxay tahay in aysan markaas wax kama jiraan yihiin ama sidii loogu talagalay oo markaas uu baranaynin balaadi ahaantaada nafsad ahaantaada adigoo ka warbixinaya dhinaca wax akhriska sidee baad ku tahay wallahi waxaan leeyahay dhinaca wax akhriska aad baan mataqaanaa isku taxalluujiyay inaan wixii macallin cashirka aan soo dhigtay ama maanta aad ama kuwan maalin hore soo qaatay ha ahaatee inaan si fiican u akhristo waqtiyo badan oo dheeri aan siiyo ayaan sameeya inta badan ayaan jecelahay waan gartay aad baad u mahadsan tahay ma jiraan jilwad ku dhagan oo markaasi ah waqtiyo aad ku go'an oo aad leedahay oo wax akhrido oo aad dhahdo waqtigaas inaad wax akhrido mooyaane aad waxyaabo kale aad qabalin ma jiraan way jiraan waqtiyada baan adigu kaleega si waqti xaadirkan laba waqti ayaa ay go'an waqtiga salaada cishaa ka bacdi ee weli inta aan la seexanin iyo salaada subax iyo inta xilliga ma garanaysaa ee galaaska iyo antagila inta u dhaxaysa xilliyadaas ayaan anu badanaa wax akhristaa sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay aniga magacaygu waxaa la yidhaahdaa Axmed Xuseen Cabdulaahi waxaan ahay qaybta manufacture sadarka
qaybta macallimiinta gaar ahaan qaybta department manufacture-ka manufacture of Soomaaliya haddaan ku sheego waa qaybta wax soo saarka hadday tahay noocyadooda haddaan kala sheego oon qaybo ka sheego sida albaabada samaynta albaabada waxaan arkayso dhex joogta hadda waa sariiro kuraas nooc walba isku jiraan qaybahaas ayaa waxaan ka ahay macallin ka mid ah qaybtaas xagga waaxdana ah department head baan ka ahay tusaale ahaan haddaad wax iga weydiiso ardayda sidaan wax u barno ardayda kulley dee waxa weeyaan annagu horta dad Soomaaliya nahay ardayda hadda la noo soo xareeyay short term ay ku jirtaa ama waqtiga gaaban barashada gaaban la yiraahdo marka boqolka arday waxaan dhihi karaa hadda si fiican bay wax u barteen hadda inkastay practical ku jiraan oo qaybaha shirkadaha yaryar loo gudbiyay laakiin hadda heer fiican bay aqoontoodu taagan tahay hadda waxaan u diyaarnay qaybta imtixaanka COC-ga ama ardayga xaqiijinta tayada waxbarashada qaybtaas aan u diyaarinay waxa kale oo jira steel gap baa jira ardaydu markay short ka soo noqoto practicalka waxaan sameynaa steel gap waqtiyo dheeraad ayaan siinaa hadda ardaygii hadda aad wareysanaysay in iga horeeyay wixii ugu yimid inaan waqti dheeraad isaga siiyo qaybtii ka dhineed aan u buuxiyo hadda sawiraan baan xaq u bariyay qaabka COC-ga loo qaadayo yaan u qaada dhigayay qaybahaasna waa manaafacaad macnaha qaybta oo ka liita ardayga inaan ka soo dhiso taas waa tan xaqan u joogo weeyaan bulshada inaan si fiican wax barana oo bulsho tayeysan soo saaro waa wax meesha u joogna weeyaan inta badan waxa lagu tilmaamaa TVED-ku inuu yahay dhiig joojinta degdega ah marka annaga laftarkaygu waxaan hiigsanaynaa horumarkan kililku hadda ku talaabsaday xawliga ah haddaan ka imaado taas waxyaabo badan oo projectyo aan sameynaa kuliyadda laftarkeedu waxay samaysaa qandaraasyo qaadataa qandaraasyadaas aan ka qaadano jaamacada iyo qaybaha kala duwan xafiisyada hadda laftarkeeda waxaan ku guda jiraa inaan sameeyo kuraastan oo ah tii army chair-ka ahayd army chair macnaha waa kii ardaygu wax ku dul qoranayay hadda qaybaha xaggan ka yaala waa adiga arkaya way socdaan qaybo kale xaggaa bay yaalaan fadhigiisii waa kan isagoo buuxana waa ka halkaa yaala qaybahaasaan runtii ka shaqaynaa annagu anoo soo koobaya hadalkayga annagu waxaan u shaqaynaa waa bulshada inaan wax barnana waxaan isku dayaynaa boqolkiiba boqol inaan soo saarno arday tayeysan hadda ka hor anigu waxaan ahaa arday xaggan wax ka bartay kuliyadda waxaan markaa bartay C level bay ahayd qaybta diplomka haddana kuliyaddu waxay sii jirtay qayb heer degree ah taasoo markaa ardayga macallinka lagu qiimeynayay shaqadiisa digriigii waxaan ka soo qaatay jaamacadda Adama University alxamdulillah rabbil caalamiin waa soo dhamaystay waa lamaadtaas haddana waxaan ku guda jiraa masterkii inaan tago taas oo aan ku eegay marka lagu qiimeeyo macallinka waxa lagu qiimeeyaa shaqadiisa lagu qiimeeyaa saasay kuliyaddu saasay noo wadaa waxbarashada kor baa loo sii qaadayaa marka annaguna waxaan ku dadaalnaa arday tayeysan inaan soo saar lahayn daawadayaal wali waxaanu ku guda jirnaa waa barnaamijkani dhiig joojinta xirfadaha oo markaas aanu ku soo qaadanaynay ardayda wax ka barata kuliyadda farsamada gacanta iyo xirfadaha jigjiga Polytechnic waqti xadirkana waxaanu ku sugannahay waa waaxda farsamada gaadiidka oo markaas aad arkaysaan in qalabkiiba uu dhan yahay isla markaasina ay joogaan ardaydii markaas iyaga laf ahaantoodu trainingiga ku qaadan lahaa waaxdani markaas farsamada gaadiidka oo waqti xadirkani ku jira practicalkii sida ay markaas indhihiinu qabanayaan oo markaas la barayo qaabkii farsamada gaadiidka sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaaluhu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaaluhu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay magacayga waxa la Cabdullaahi Good Cabdi waxaan kamid ahay ardayda wax ka bartay Polytechnic College qaybta departmentiga automotive engineer surface waan gartay adigoo raaliya qalabkan hadda aad markaas practicalka ama waad ku qaadanaysay ama waad wax ku baranaysay magaciisa maxaa la yiraahdaa qalabkan waa injiino halkan ku yaala kan waa grinderkii wax lagu cabirayay marka waxa la yiraahdaa grinder valve baa kan la yiraahdaa valve-yadii biraha ayaa lagu jeegarayaa oo
markii burta kala dheertay ayaa la isugu simaa kana lagu cabiraa oo la yiraahdo tachometer marka halkii daqiiqo intuu socday oo kale ayaa tan kaga cabiraysaa saas kugu sheegayaan kan marka baabuurku intuu soconayay baad ku cabiraysaa timing beelalkan wareegaya inta jeer uu wareegay ama grinderkan wax kasta oo wareega ama silsiladaha ama timing aad wax kasta oo wareega halkii daqiiqo ama halkii saac inta jeer uu wareegay ayaa tan ku cabiraysaa marka soo cabirkii ku sheegaya sidoo kale tan waa lagu cabiraa iyaduna waxa weeyaan maaragtay iyaduna waa tachometer baa la yiraahdaa marka wiilkii oo kan ahay cable station xarkii gaariga ku jiray hay cable soo galay ayaad ku cabiraysaa sidoo kale kan waa battery voltage-diisana lagu cabiraya iyagana marka qalabku saas uu socdaa practical kaas lagu qaadanaa waan gartay aad baad u mahadsan tahay bal xirfadani aad baranaysa markaas waxa ay tahay iyo faa'iidada aad isleedahay markaas xirfadani marka aad dhamayso waad ka heli karaysaa maxay tahay wallahi farsamadan aad bay u fiican tahay aniga rabitaankayga waxaan isleeyahay maadaama ay xirfadan bartay tahay waa automotive engineer waa qaybta gaadiidka macnaha waxay yiraahdaan waa dhakhtarka gaadiidka baabuurta marka maadaama xirfadan bartay tahay meel kasta oo tago inaan kaga shaqeysto ayaan aaminsanahay waliba aan maaragtay xirfadayda si rabitaankayga aan ugu shaqeysto dadka bulshadayda iyo saaxiibadayda iyo ardayda aan ugu baaqayo inay tan kala soo galaan walow ay dadku iyo ardaydu jecel yihiin ICT iyo waxyaalo kale iyo saas farsamada gacanta barta waan dhihi lahaa waan gartay waayahay ujeedada aad markaas wax u baranayso maxay tahay waxa weeyaan waxaan u baranayaa horta marka koowaad inaan maaragtay naftayda ku anfaco ta kale aan bulshadayda ku anfaco deena wax ku qabsadaan ku shaqeysto waan gartay ayaan baranayaa dalkayga iyo bulshadayda iyo dadkayga inaan wax ugu qabto oo dad badan oo maaragtay kolkaan maaragtay anu aan shaqeysto oo meel samaysto deena ummad badan ka qayb geliyo oo farsamadiina wax ka baro haddii kale noloshooda tahayna wax kaga bedelo ayaan saas ugu baranayaa insha Allah waan gartay nolol kasta ama shakhsi kasta waxa uu leeyahay yool ama hiigsi uu leeyahay oo jecel yahay inuu mustaqbalka gaaro kaadi shakhsi ahaan yoolka ama hiigsiga aad leedahay ama aad doonayso mustaqbalka inaad gaadho ee ku gaarka muxuu yahay kulli waxa la yiraahdaa hore loo soconaya marka horumarkan la qayb yeelna jaan qaadaya inaan hore u socdo horumarka ka qayb qaato xirfadda maadaama baranayana waxa weeyaan waxyaalo badan baan kaga gudbayaa oo maaragtay waqtigii hore aanan haysan jirin marka yoolkaygu wuxuu yahay inaan maaragtay qalabkan marka aan barto inaan maaragtay horumarka dalka ka socdo ka qayb qaato ama aan macallin noqdo dadka wax baro oo meel kale maaragtay intaan tago sida college-yada la furayo maaragtay deegaanka kala duwan inaan meelaha dadka kor soo qaado maaragtay xirfadooda iyo aqoontooda rabtaankaygu saas weeyaan ta kale waa inaan anigu maaragtay si toos ah aan noloshayda wax ka bedelo sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaaluhu intuu boqolka sara mari hakimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaaluhu intuu boqolka sara mari hakimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay magacaygu waa maxamed axmed maxmed waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata kulliyadda maxay ahayd xirfadaha iyo tababarada ee ku taala dowladdeegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga waan gartay maxay ahayd departmentiga automotive-ka waxa ahayd automotive baanis waxa weeyaan qaybta maxay ahayd automatic mechanics-ka waan gartay marka maxay ahayd kaliya barasho ma ahin maxay ahayd darwaalnimo ay dhaafsan tahay waa qaybta maxay ahayd mechanic-da baabuurta sax baabuurta qalabkoodii baad markaas barataan dhammaantood waxaan waliba u baranaa si mechanical oo practical aan u baranaa marka qalabkan meesha yaala wad aragtaa isagoo kala daadsan muxuu yahay hadda kan maxay ahayd waa ijiinkii qayb kamid ah waliba weyn isagoo oo dhameystiran maaha qaybtan ijiinku saddex qaybood buu qaybsanaa waa qayb kamid ah marka qaybtan waxa la yiraahdaa cylinder block baa la yiraahdaa ama mono block baa la yiraahdaa marka waa qaybtaas qaybtana waxa weeyaan qaybta maxay ahayd ay ku dhex ciyaaraan maxay ahayd cylinder in bostonadu marka qaybtaas weeyaan qaybtan meesha ka muuqata hadayna hortaalo waan gartay walaal aad baad u mahadsan tahay bal xirfadda aad barato iyo waliba marka aad barato xirfadaasi waxaad is leedahay waad ku faa'iido karaysaa ama faa'iido ay leedahay maxay tahay markaas أنا هرتا شخصيا هانتي وحن آمسين هاي حرفضو إنك كمت هاي وحيابها لبرت وحيابها وقيمة بدن محايا لي barashadu way kala jirtaa waxna waa theory waxna waa practical marka waxyaabaha maxay ahayd practicalka ee xirfadaha sida maxay ahayd waxaan yaabahan imika inaga hormuuqday mechanica sida maxay ahayd caafimaadka kala sida ICT ka kala waxyaabahaas xirfadaha horta aad baan u jeclahay dhamaantood balse imika qaybtan imika aan ku guda jiro maxay ahayd waa qayb xirfadii kamid ah marka xirfadaas waxa maxay ahayd anfici doonta aniga waliba kaligeena ma anfici doonta waxaan ku anfici doonaa maxay ahayd dalkayga iyo dadkayga anigoo waliba ku haweenna si kordhiyo aqoonteedana maxay ahayd waliba si kobciyo hadii la haydmo waan gartay marka maxay ahayd waxaan rajaynayaa inaan meel ka gaaro insha Allah hadii la hayd waan gartay ujeedada aad wax u baranaysa maxay tahay
ujeedadan wax baranayo waxa weeyaan inaan maxay ahaydey horta jahlinimada aan kaga baxno marka labaadna inaan maxay ahaydey dadka iyo dalka wax ku qabano marka labaadna inaan noqono dad maxay ahaydey sheegtaris oo wax soo saari kara markaana dalka wax ka bedeli kara saastaraadid baan u baranay waxbarashada waan gartay yoolka iyo heegsiga aad leedahay ama aad rajaynayso inaad mustaqbalka gaadho muxuu yahay yoolka iyo heegsiga maxay ahaydey anigu shakhsi ahaantayda waxa weeyaan inaan noqdo qof initiator wax cusub ku soo kordhiya bulshadeena inaan noqdo ayaan rabaa okay maxaad kula dardaarmaysaa dhalinyarada kale waxaan kula dardaarmi lahaa inay maxay ahaydey nidaamkan maxay ahaydey waxbarasho nacaybka hadda baryahan dambe soo caanbaxay inay maxay ahaydey dhalinyaradu joojiyaan marka inay wax bartaan oo welibana maxay ahaydey ay soo celiyaan moraalkooda waxbarashadoodana maxay ahaydey sii wataan iyaga caafin doontaa iyaga maxay ahaydey kaafin doontaa ay wax u tali doontaa insha Allah mustaqbalkooda wal macallimiintaadu sidee bay wax ku baraan macallimiinteedu waan u mahadcelinayaa aad baa waxay bareen waxyaabaha nimkan ku sheegay oo dhan ba iyaga ay baray marka qaybaha dhan meesha kaaga muuqda waxyaabaha badan inta badan wax waa ka aqaana marka alxamdulillah iyagana waan mahadcelinayaa bimaadsiin aad baa mahadsan daawadayaal halkan aan ku sugannahay waa gudaha Jigjiga Polytechnic oo sidaad u wada jeedaan baad markaas arkaysaan hogaga waaweyn ee markaas ka qodan kuliyadani dhexdeeda oo markaas lagu gol leeyahay in markaas biyagelin looga sameeyo kuliyadani iyadoo markaasna ay xusid mudan tahay in biyagelintani ay ka sameynayaan ardaydii ka baratay kuliyadani dhinaca ama waaxda biyaha baratay iyo waliba macallimiinta oo markaas iskaashanaya taasina ay tahay faa'iidooyinka ballaaran ee markaas ay soo kordhisay kuliyadda xirfadda iyo farsamada gacanta ee Jigjiga Polytechnic سالكما أحدى عالدهن انت الريق لساري سيدا وبي بتاعيو عفر دام يسيمانيو بركدو سيبير لمريو روك كناغو سيما حسبيقا سميو سرمي إيها الراداري ساميقا وراب كنو ساقاشن بقولكي كورنوان سعونا كورنوان سعونا الحمد لله ولا شقادني وعشقة حرفنا نروح كستو بران كنا رجيا دمر هذا الحمد لله أنا قوادنا عرقتان هذا جروب بانكو شوفنا جروب لنا جروب ساك شقينين جروبنا وانا عرقنا قبل وبدينين وحنا أنا هان قبل هان rag waxay qabanayaan waan qaban karnaa maadaama xirfadu uma baahna xoog waxna waa xirfad waxna waa xoog marka tan waa xirfad mar hadaan xirfadda naqaanana ragga waxaan u malayn karaa intay bartaan in ka badan inaan baran karno hawshay qabtaan hawl ka badan baan qaban karnaa aad baad u mahadsantahay bal xirfadda aad baranayso waxa ay tahay iyo waliba markaad xirfaddaas dhamayso waxyaabaha isleeda waad ka faa'iidi karaysaa maxay tahay waxaan ka mid ahay arday Jigjiga Polytechnic College department water distribution system macnaha waa qaybinta biyaha loo gaarsiiyo bulshada department aad baan ugu faraxsanahay marka maanta markaan dhameeyo hadii insha Allah waan gaarsiin karaa bulshada meel kasta oo la diro biyahana si fiican baan ugu gaarsiin karaa uguna qaybin karaa si xirfad leh maadaama aan bartay xirfadii aan u qaybin lahaa aqaanana in badan baan bulshada macnaha ka caawin karaa siina karaa xirfadii aan bartayna si fiican baan insha Allah ugu adeegi doonaa maanta taana waxa uu cadeyn ama marxaati ah maadaama maanta kuliyadeedii biyagelinino anagoo macnaha xirfadaan u baranay uga faa'iideynina insha Allah aad baan ugu faraxsanahay inaan baranay kadibna aan uga faa'iideyn kana bilownay kuliyadeedii hadhowna saan kuliyadeeda u biyagelinay ayaan insha Allah hadhowna waxaan u biyagelin doonaa meelahan tagno ama degmo goobahan lagu qoro insha Allah waan gelin doonaa biyagelin doonaa waan gartay rooda aad baad u mahadsan tahay bal ujeedada aad markaas wax u baranaysaa naf ahaantaada maxay tahay alxamdulillah horta waxaan dhigtaa Jigjiga Polytechnic department waa department aad u fiican inta badan gabdhuhu kuma badna way ku yar yihiin laakiin se hadda waxaad aragtaa inuu la fahmay macnaha aqoontu muhiimadda ay leedahay marka la fahmayo wax la bartaa marka department waa department wanaagsan inaan hadhow toolo wax dadka wax ugu qabanana waan jecelahay aniga naf ahaantayda ka soko inaan bulshadeeda gaarsiiyo oo gabdho wax awal ka hormar deeni jirin arday barata ama khaasatan gabdho barata macnaha in biyo la geliyo
dadku waxa arkaan wax adag laakiin si xaqiiqatan wax adag maaha waa wax adiga ka go'naansho aniga iga go'an tahay inta nafteeda ku anfaco wax barto dadkaygana bulshadeeda sidii wax lay bare u gaarsiiyo aad baan ugu faraxsanahay insha Allah waan ku hanweynahay waan gartay shakhsi walba oo bini'aadana waxa uu leeyahay heegsi iyo yool uu heegsanayo oo uu rajaynayo markaasi inuu mustaqbalka gaaro bal adiga ka rood ahaan maxaad jeceshahay mustaqbalka inaad gaadho oo markaasi aad markasta ku riyooto ama aad u jeceshahay waxaan jeclahay inaan noqdo macnaha qayb kamid ah hadda engineering aan bartaa inaan engineer bartaan jeclahay inaan gabadh engineerado dadkooda wax la qaybsato oo dadka biyaha qaasatan qaybtan biyaha inaan dadka biyaha aan aqaano si ceelalka loo soo saaro si loo gaarsiiyo bulshada loo gaarsiiyo biyo nadiif ah si bulshada loo qaybiyo macnaha inaan dhanka ani kaalinta iga aadan inaan ka soo baxaan jeclahay aqoonteedana sii korodhsado inaan bulshadeeda wax u qabtaan jeclahay mar walba salka maaxda ceeldihin inta riig la saare sida wabi bitaaciyo afar dhaamya simaniyo barkado sibir la mariyo roobki nagu sima xisbiga sameeyo surmi iyo haradaadhe saamiga waraabkuna 9% korna waan soconnaa korna بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu marka hore waa Hibaaq Maxamuud Xasan oo dhigata Jigjiga Polytechnical College gaar ahaan departmentiga Water Supply Distribution oo ah biyo gelinta ما شاء الله horta faa'iido badan baan ka helayaa waayo hadda ka hor markaan kuliyada soo galay wax aqoon u maan lahayn biyo gelinta maanta laakiin alxamdulillah min badan baan ka bartoon ka faa'iiday xirfadan biyo gelinta sida arkaysaan oo kale maanta waxaan wadnaa excavation waa qoditaanka dhulka alxamdulillah taas ba awal maanan garanay laakiin maanta meel badan baan biyo gelin karayaa ma sha Allah anigu jeedadan wax u baranayo waxay tahay inaan naftaydana anfaco bulshadeydana aan wax u qabto aanan siiyo biyo nadiif leh biyo tayo leh insha Allah waxaan rajaynayaa inaan noqdo engineer buuxa oo soo saari kara biyo nadiif ah bulshadeedana gaarsiin kara wax badan aan u qabto bulshadeyda iyo naftaydaba horta marka koobaad ragga iyo dumarka waqtigan la joogo way sameeyeen waaga hore jaahilnimadii baa la oran jiray rag iyo dumar ma sinna ma sha Allah xukuumadayada ayaa nagu gaarsiisay horumarka aan maanta kula tartami karna ragga wax walba ay qaban karaan raggu inay dumarkuna qaban karaan wax walba ay raggu qabanayaan waan qabanaynaa maanta dumar hadaan tan oo kala maqraatika waayo markii hore waxa qodi jiray rag laakiin hadda dumar anagoo ayaan qodaynaa biyana gelinayna kuliyadeeda waan gartay macallimiinta sidee wax ku baran ma sha Allah macallimiintu si fiican bay wax baraan waadinkan arkay practical bay siiyaan tiiri ahaan bay igu siiyaan waxyaalo badan bay fahansiiyeen oo maanta bulshadeeda wax ugu qaban karo waan gartay dhinaca wax akhriska ay nafsada ahaantaada sideed ku tahay ani xagga waan ku fiicanahay ma sha Allah waayo waqtiyada aan firaaqada ahay sida habeenkii fiidkii oo kale markaan hawlaha xaafadda iska dhameeyo wax baan akhristaa si aan u kororsado aqoon dheeraada salka maaxda ceeldihin inta riig la saare sida wabi bitaaciyo afar dhaamya simaniyo barkado sibir la mariyo roobki nagu sima xisbiga sameeyo surmi iyo haradaadhe saamiga waraabkuna 9% korna waan soconnaa korna waan soconnaa daawad iyo waqti xadarkani waxaanu ku sugannahay waa waaxda cunto karinta oo markaasi gabdho fara badan oo kala yimid gobolada markaasi deegaanka ay ku baranayaan dhinaca cunto karinta iyadoo markaasina jiraan macallimiin markaasi khibrad dheer u leh dhinaca cunto karinta oo markaasi ardaydani baraya dhinaca cunto karinta sidaad u wada jeedaanba gabadh ayaa hadda waqti xadarkani ku jirta qaabka cunto karinta iyadoo hawshadeena markaasi ku jirta waqti xadarkani sameynaysa sida ay markaasi keek macquul gal ah oo ay markaasi dadku wada jeclaystaan markaasi u sameyn هذا وقت حاضر كان سيداد وجهدان با كل يدهن غير فضيل لابو ذكر سويا حي كوريا جاركي كورقاضي عقلتي كورقاضي عقلتي يعني marka hore waxaan salaam bulshada soo booqatay annagoo ardaydii baranaysay hotel managementiga gaaraan kitchenka hadda waxaan sameeynay biscuit buskan wuxuu ka kooban yahay caano ukun iyo subag iyo daqiiq ka bacdi inta markaad u geysado qasto daqiiqdaad ku darto hada xashto boomkan ku jarjaraysaa of intaad galeysa hadda waan ka soo saarnay noocaas buu noqonaya hadda xirfadda anigu bartay waa cuntada
waxaan ka faa'iidi doonaa insha Allah waxaan isleeyahay hadda markaan soo qalinjibiyo inaan anigu dib dad u xusii baro oo anigu dad soo saaro naftida ahaan anfacdoon meerada ku furto oo dadkii wax ibareen aan moraalka uga dhisoon ana wax bartay aan arkaan dadkii dan wax qabanayo wixii aan bartay soo saaray ayda aad iyo aad weyn aan markii hore aan kulliyada soo galay waxaan islahaa cunto wax laga barto ma laha laakiin aad iyo aad baan uga faa'iiday cuntadu ma ahan baastiya bariis laakiin waxa jira waxyaabo aad iyo aad u fara badan oo hadda soo koobi kareenin hamburger pizza wax badan baan ka bartay run ahaantii hadda waxbarashada marka aan dhameeyo rabo inaan saa ku daayo inaan sii wadno doonayo heer ilaa master aan dhaafiyo xataa teeda kaleeto waxaan rabaa waxa aan bartay inaan la fadhiisanin oo dad kaleeto wax baran wax soo saar ujeedada waxaan u baranayaa waxay tahay in marka aan barto ama hotel ama wax kasta oo awoodo inaan ku shaqaysto sida ugu quruxda badan gabdha sidoo kalena inaan u faa'iideeyo oo sida hooyo Aamina Maxamed Cali ii barto kale aan u baran ugu faa'iideeyo sidoo kale hadii maanta ay lagu soo booqdo marti ku timaado cuntooyin qurux badan inaan ku soo dhaweeyaan jecelahay mustaqbalkayga hadafkaygu wuxuu yahay ee ugu weyn marka aan barto in ka qalin jabiyo in aan ku shaqaysto oo wax kasto ugu qurux badan aan ku barto kulliyadahan xirfadeen lagu wada kalsoonahay hooyay garankii kor u qaaday aqoontii kor u qaaday aqoontii runtii macallimiintu isku wada jiraan aad iyo aad ba si fiican loo baraa gaar ahaan macalimiinta bartkalkan barto macallin Aamina runtii si fiican u nagrashay laan bay noo bartaa afkii hooyan way nagu bartaa macluumaad aqoon iyo xirfad wax walba isku darsatayna way tahay ma hadeedan hadda ma bogi karo macallimiinta horta gaar ahaan macallimiinta kala theory bay noo dhigaan laakiin cuntada waxa aad iyo aad muhiimada ugu weyn ee xoogga saaray hooyo Aamina Maxamed Cali weeyaan macallimiinta kala 10 bay noo dhigaan laakiin cuntada wax walba oo baranay aad iyo aad ayaan uga faa'iideysanaa nooga baranay taasabtii hadda maalmaan waxa jirta ay nala soo hadasheen ugu tiraada hadda jaanisaytiin kaalayo oo barta waan u nimaadnaa maalmaan xataa labada gelin bay sabtii hadda noo dhigtaa oo wax xataa dan ilowna haduu jiraan ku dhaana noogu celisaa kulliyadahan xirfadeen lagu wada kalsoonahay hooyay garankii kor u qaaday aqoontii kor u qaaday aqoontii runtii waxaan dhihi lahaa ablaydeedu fadhiga isaga kaco kaalay oo wax barta ayaan dhihi lahaa fadhi waxa ma tarayaha anu gabdhaha daadayda ama jecel inay hotel management bartaan waxaan u sheegayaa cunto inaan ahayn baastiya bariis iyo canjeero cuntooyin aad iyo aad u khibrad badan oo la baran karo oo aad u qurux badan baa jira inay bartaan welcome sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaaluhu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhiina diidnay sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaaluhu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhiina diidnay sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaaluhu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhiina diidnay xilliga sektorkan TVED-kana xirfadlayaasha haddaan ka miro dhalin hadday noqoto waxyaalaha neerkiisaan hadday noqoto beerii hadday noqoto xoolii hadday noqoto caafimaadkii waxa inta badan 80% shaqada qabta waa dadkan xirfadlaha adduunka oo dhan waxay ku kala socotaa xirfadle ku kala socotaa xiriiran xirfadana mudnaanta siinana waa muhiim xirfadu waa wax aad barato tusaale hadda anaga waxaan bixinaynaa xirfadda gacanta farsamada gacanta waay farsamada gacantu inaad barato inaad wax qabato sababta qof xirfadda qaato xirfadu waa kala duwan hadda software iyo hardware budget laakiin anaga boqolkiiba boqol waa farsamada gacanta waa hard skill dadku inaad wax barta
oo noloshooda u bedelaan haddii aad wax barato noloshooda u bedelaysaa saa darteeda in dadka wax barto si fiican wax qabataan noloshooda u bedelaan oo dad kaleba caawiyaan saas xirfaddu wuxuu aad qabato kale aad soo saarto waa taas waa sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay ujeedooyinka weyn ee horta loo asaasay waxaa ka mid ah waa in xirfadaha la barto oo deegaankeena muwaadinka u dhashay deegaanka Soomaalida inuu isagu maadartay xirfadiisa inta xirfad la baro uu isagu isku filaado meesha inta badan imkana ka xirfadlayaasha waxay nooga yimaadeen deegaanada kale dadkeenu inay xirfada intay bartaan maadartay la isku asaaso xilliga kulliyadda kaliya taajiri jirtay iyo kulliyadda qabri daare iyo kulliyadda jarati laakiin sanadkan waxa xadhiga laga jaray aduuleeda qabri dhagax buur waa laga jaray shan kalena waa laga jari doonaa xilli waxay ka dhigantahay gobol kasta oo dadka xirfadiisu yeelanay ka dhigantahay xilliga 70% xilliga dadka xirfadlaha ka soo baxayo dadkaana gobolka ay baahi tiraan ka dhigantahay haday noqoto beerihi haday noqoto xoolihi haday noqoto dhismihi waxyaalahan xilliga waxay la socotaa horumarkay la socotaa xilliga gaabkaan xilligan buuxino waxay ka dhigantahay de horumarkeeni wuxuu ku soconaa ka dhigantahay ujeedada lahayn goolkeen lahayn GTP 2 gaan lahayn waan gaarina yaan higsanina haduu leeyahay ujeedadu la xasaasay farsamada gacanta kow inaan dhimino aan ka baxno saboolnimada sababta qof haddii gacantiisa wax qabto wax soo saaro saboolnimadii waa ka baxayaan noloshiisa u bedelamayeen had dawladdu wuxuu qaatay farsamada gacanta waa dhiig joojinta sababt qof degdeg asagoo level 1 ah heerka kuwaad ka soo baxayo isla markiiba waxa sameynaya faarad kuraasadii minsaskii wixii ba sameynaya isla markiiba oo iibsanayeen income ba soo sameysanayeen saa darteeda haddii qof income oo sameysado saboolnimadii waa ka baxaysaa sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina ilaa qayb weyn bay ka qaateen baa la oran karaa inkastay dadku yareeyeen ay kulliyadu nagu yareeyeen laakiin imika hadana qayb fiican bay ka qaateen baa la oran karaa si wada xukuumaduna waxa u qaadatay dhiig joojin degdeg u qaadatay haga dhiig joojintii madarkiisindeedo waqti yar gudaheega in madarta dhalinyartii ay wixii imika soo fahmeen laakiin maanta waxa la arkay inay madarta xirfad u tahay meesha kaliyaati lacagta la raadinay waxay doontaa noqotay lagu helay noqotay taana waxay ku tusaysaa in madartay ay dadkii soo jeclaanayaan oo qofkii imka xirfadiisa ku faano ay dadkii iman jireen yimaadeen maanta macalaha haweenkeena xirfadda ka qayb qaadan xilliga darteed wada ugu farxaysa taana waxay ku tusaysaa in isbedelka lagu sameeyay qaybta warbaahinta iyaduna inay qayb libaax ka qaadatay ay madartay kuna dadaal badan ay ka geysteen imkana program madartay diiklojin leeyahay iyadana aan bilownay xilliga iyadana warbaahintan waxaan leenahay iyadana aad baan ugu mahad celinayna waxa la asaasay 1984 taariikhda Itoobiya wax badan baa qabatay dad badan baa soo saartay tusaalaada dadkad oo shaqeynaysanayeen iskaashatooyinka oo intaas milyan baa soo saareen had kuraasadii iskuuladii dhammaantooda ardayda halka ka soo baxday baa sameynayeen iskaashatooda sameeyeen saa darteeda dad inay wax bartaan dad badan baa qabtaan had hotel management dad badan baa soo saartay oo farsamada haddana meel badan baa sameynayeen saa darteed in noloshooda
dad badan baa isbedeleen milyoonaan baa noqdeen qaar saa darteeda deegaan baa wax ku soo beereen sabab inaad saboolnimadii ka baxnay heerkaasaan maraynaad sababtad college inta ka soo baxay inta la asaasay kadiba intaas kun baa soo saaray ardad ardadaasi dhammaantooda wax qaar baa xafiiska dawladda ba shaqeynayeen qaar boqolkiiba 80 iskaashatoodu baa ku jiraan wax baa soo saarayaan taasa jirta wax badan baa qabteen sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina dhalinyarta kale waxaan ka leeyahay ee iska fadhiday maadartay maqlays waxaan ka leeyahay xirfadda kale ee barta kuliyadahan la furay meel kasta laga furay gobol kasta laga furay dadka looma furin inni kaana nii furay xilay inaad fursadda ka faa'iideysataan waxa lagu tijaaraa laguna yeeshaa gurina wax kasta lagu yeelan karo waa guri waa gacantaada laga صعب بيها قال قدرك حلقة قعنت هذا القديات كقدرك حرفته أو تكون شقيسني أي مكان حكومة حقوق درتيني ما درت شقابور كحلي تدك حرفة اللي يسكون حلو إن العقد اللي ديمينه حلي العقد نوح اللي ديمينه تدك ما درت حرفة برتال ديمينه حلينا فرصة كفاية دي ستان وما درت كشقيستان أنا كنا ورك حكومة دي كل بروجكت يجري وأنا لقى بسيرنا وأنا لو حنا حلي دليرت وحلينا هاي كوسو حيستا كوسو ديردا صوغلا قبل كستان وحلينا هاي كليتنا دي تول ما درتين كفاية ستين آدي أدوات مهندسين waxaan dhammaan u dardaramayn especially dhalinyarada inaan farsamada gacanta bartaan haddii aad farsamada gacanta barato beeriya ahaato caafimaad ahaato iyo technical ha ahaato wax soo saaraysa inaad gacantaada wax soo saarto in gacantaada wax qabato taas darteeda in income u samaysto haddana saboolnimadan ka baxano sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina bal waa sida nidaamka barasbarasho ee markaas kuliyadani mid sida awiyaan aad baad kale mahadsantihiin sida fiican aad noo soo boqoteen sadaan ku socdo su'aashaada weydiisay kulay nidaamka barasbarasho ee kuliyadda Jigjiga Polytechnic College waa nidaam si habsami leh hadda u socda waa nidaam hadda nasaad macnaheedu ku gasheen ama aragteen ardayda iyagoo ku jira goobahoodii waxbarasho marka guud ahaan nidaamka waxbarasho ee kuliyaddu marka laga hadlayo dhinaca tababaradii dhaadheera oo kuwii joogtada ahaa iyo tababaradii gaagabnaa ee shaqo abuurka ee dhig joojinta u ahaa xirfadaha iyo dhammaan kuwii xikaa shirkadaha aan taageerinay ee dibadda ahaa waxaan oran karaa waa mid sidii loogu talagalay oo habsami leh u socda yani guud ahaan waxbarashada ka socota ee xirfadaha kala duwan ee kuliyadda laga bixiyo aad u ballaaran waxaan oran karaa guud ahaan si habsami leh ayay u socdaan hadda sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay xirfad waxaan oran karaa waxa weeyaan macnaheedu fursad shaqo ama aqoon ka kooban skiilkii ama xirfadii qofku uu baranayay oo gacanka qabasho ah iyo cilmigii xataa aqoonta gaarka ah xirfadda gaarka uu ku baranayay iyo sidoo kale aragtidii xitaa ay u baahnayd in macnaheedu saddexdaas marka la isku daro ayaan oran karaa xirfadaha ay kuliyaddu bixiso waxay isugu jiraan inuu qofkii technical ahaan
ama haddaan odhan karo farsamo ahaan inuu gacan ka qabasho uu dhisnaado tusaale ahaan waxaa xirfad noqon karta inuu qofkii barto qaybaha dhismaha oo sidii loo dhisayay gurigii iyo nidaamkii procedure-kii uu gurigu marayay hadday noqoto blockade samayntii hadday noqoto nidaamkii la iskugu qasayay blockade-ga iyo macnihii sibirkii iyo nidaamkii kala duwanaa waxaa noqon karaa marka xirfad waxa weeyaan qofku aqoon khaas ah oo farsamo oo uu macnihii ku shaqo tegi karo oo kaga bixi karo baahi maadaama deegaankeena la qaatay in aan ka qalin jabino saboolnimada aan wixii kale dhan meel saaray iminkana aan u soo jeesanay inaan macnihii saboolnimada meel saaro xirfadu waxay u yihiin dhigjoojin marka waxaan odhan karaa xirfad waxay tahay waa iyadoo qofkii lagu hubeynayo aqoontaasoo isugu jirta tii farsamo ee skillkii la yidhaahdo iyo tii cilmigii laftarkiigi in laiskugu daro xataa aragtidii xitaa qaabkii u shaqaysan lahaa ee uu kaga gudbi lahaa nidaamka mashaqaystanimada iyo shaxaadka ayay isugu jirtaa marka si kooban waxaan soo dhigi karaa xirfaddu waxa weeyaan mid qofka bini'aadanka ka saari karta saboolnimada oo macnihi markuu xirfaddaa barto qofkii wuxuu ka baxayaa waxaa loo yaqaano dependency-ga inuu qof kale ku tiirsanaado isagiiba wuxuu noqonayaa wuxuu helayaa confidency ama isku kalsoonaasho aqooneed xirfadeed una ku shaqo tegi karo sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaaluhu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhiina diidnay sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaaluhu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhiina diidnay kuliyadani xirfadaha iyo farsamada gacanta muddo badan bay aasaasan tahay waqtiyadii ay aasaasaneed ilaa eega in inta laag bay markaas kuliyadani ka qayb qaadatay yareynta saboolnimada amaba aan idhaahdo yareynta dhigjoojinta saboolnimada aad baa maasantahay kulley waxaan aaminsanahay kuliyadan waa runta Jijiga Polytechnic College waxay ka mid tahay kuliyadihii ugu da'da weynaa kuliyadaha deegaanka ka jira ee TVET-ka xukuumadeena runtii hogaaminteena qiimaha iyo qaayaha lana jihada ay qaatay waxa weyn si loola dagaalamo saboolnimada loona soo dabar jaro in xirfadaha loo qaato dhigjoojin runtii anagoo ku ammaanayna xukuumadeena wax qabadka ay ka sameysay saas ee xisbigeena dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya oo runtii kaalin weyn ka qaatay waxaan aaminsanahay kuliyada Jijiga Polytechnic College kaalinta ay ku leedahay hadda iyo kaalinta ay hore ku lahayd waxa weyn kuliyadu ilaa hadda intay soo saartay waxay soo saartay xuduud fara badan oo maanta deegaankeena meel kasta oo ama degman kasta ama qabale kasta ama mandar kasta maanta ka shaqeynaya oo xuduud kala duwan oo macnaheedu ka dhisan xaqii aqoonta oo tayo leh ayay soo saartay sidoo kalena kuliyadu waxay ku hawlan tahay diyaarna ay u tahay markasta qorshaheega u yeelana ay ka mid tahay si looga qalin jabiyo saboolnimada in ay soo saarto xirfadlayaal iyagu aan shaqo raadinin iyagu shaqo abuur sameeyay marka sidaan ognahay hadda kuliyada waxa ku xireysan arday aad u fara badan ardaydaas oo iskugu jirta tababarada dhinacyo kala duwan qaadanaysa markaan tababarada kala duwan qaadanaysan leenahay saddex qaab oo tababaray kuliyadu bixisaa tababarada loo yaqaano tababarada dhaadheer oo ilaa hadda arday ciidaha ka badan ay ka qalin jabiyeen kuwaas markaan leenahay waa tababarada level based loo yaqaano 2 sano 3 sano iyadoona sanad lagu xidhin hadana levelkoogu ilaa 2 sano 3 sano ardayda ka baxda toonaadada iyo 12 toonaadada ayaa toos u gala marka tababaradaas hadda ilaa hadda waqti xadarka marka loo barbardhigo xilliyadii hore ay kuliyadu jirtay ardayda hadda ku xireysan waa arday ka badan ilaa iyo kun ka badan kuwaasoo macnihii ku jira tababaradoodii khaaska tababarada labaad ee kuliyadu bixisay ee loo yaqaano kuwa dhigjoojinta degdega ah markaan leenahay dhigjoojinta degdega ah macnihii ardaygu shalay isagoo bil ka hor ahaa bilaa camal shalay bil ka hor isagoo ahaa macnihii arday aan xirfad garanaynin inuu intuu muddo bil ama 45 bari ah kuliyada ku jiro oo xirfadii ku barto isla markaana xukuumadeena intay shirkada iskugu xidho lacag la deymiyo la funding gareeyo iyagoo laga faa'iideynayo baakajida dhalinyarada kala duwan ee deegaanka ka jira iyo dalkeenaba inuu shalay ardaygii 45 cisho ka hor bilaa xirfad ah intuu xirfad ku barto isla markaana 45 cisho kadib uu durba shaqo u hiigsado inuu hiigsado kaliya tama hayna isaga laftirkiisa hadan shaqo abuur sameeyo sababtoo ah qofku inuu qofku shaqeeyo waxa ka fiican inuu isaga laftirkiisa uu shaqo abuuro marka kuliyadu kulli taana way bixisaa tababarka saddexaad ee kuliyadu kulli ku hawlantan waxa weyn in goobihii ama shirkadihii hadda ka hor baxay ee suuqa ka shaqeysanayay gaabkii xagga tiknoolajiyada gaabkii xagga nidaamka ganacsi ee loo yaqaano entrepreneurshipka iyo nidaamkii technicalka ay u shaqeysanayeen laftirkooda inta goobahooda loogu tago in la taageero halka lagu shaqeeyo kuliyadu taana laftirkeedu ee shaqooyin bi hadda ka wada oo banaanada laftirkeeda intay macallimiintu u baxaan macalinku laba galaas buu bixin galaas halka markuu ardayda joogtada u dhigo inuu haddana intuu shirkadihii yaraatigo uu gaabka haysta inuu halka ka bixiyo salaam
haddii uu alxan ama faarad ay ku taala magaalada dhexdeeda faaradaasi maxaa gaab oo haysta dadkaasi qaabkay wax u barteen ilaa imtixaanka si oo si intay ka qaadanayaan inuu taageero sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay sida dunida qaarkeed saamiga dhaqaalu intuu boqolka sara mari hakiimayna socodkeena sarakacnayo fadhina diidnay dhalinyarta deegaanka waxaan ku wacyigelin lahaa inay ka faa'iideystaan fursadda maanta deegaankeena taal runtii xukuumaddeenu maanta waa xukuumad horumarneed waa xukuumad maanta diyaar u ah shacabkeyga kaalin walba inay maanta macnihii halkay joogto ay fursad ugu abuurto marka inay bulshadeenu ka faa'iideystaan nimcada deegaankeena taalla maanta nimcada deegaankeena taalla aad bay u ballaaran tahay daawadayaal waxaanu gaarnay waa guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena dhig joojinta xirfadaha oo markaas aanu ku soo qaadanaynay kulliyadda xirfadaha iyo farsamada gacanta ee Jigjiga Polytechnico anagoo markaasna si toos ugu kurgalaynay xaaladda barasbarasho ee ardayda wax ka barata kulliyadani anagoo markaasna qalab kasta oo markaas ardaydana wax lagu baro si toos ah ugu tagaynay eegaynay natiijadiisa iyo waliba qaabka ay markaas ardayduna ay wax ugu bartaan daawadayaal barnaamijkan dhig joojinta xirfadaha ayaa waxa si toos ah idinku soo gudbinayay waanigu ah Cabdirasaaq Ibraahim Idaaja sidoo kale waxa dhinaca sawirada iyo kaamirada cajiibka ah ee markaasi indhihiina ku soo dhacayay qaaday waa saaxiibkay Ibraahim Cabdi Muuse oo aan aad ugu mahadcelinayo sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa guud ahaanba dadkii igala qayb qaatay soo gudbinta barnaamijkani ee gacanta weyn iga siiyay sida maamulka kulliyadda oo si heer sare ah markaas noo soo dhaweeyay daawadayaal inta aanu barnaamijkan dhig joojinta xirfadaha toddobaadka dambe aynu ku kulmi doonno hadduu Allah awood la ogolaado waaniga guud ahaanba bahda dhig joojinta xirfadaha markaas ESTV oo si isku duuban idinku leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh